bilaabahayay anigu waxaan ku jiray sida runta ah dadka shakigu London bayaanan aadinay Burleenkan caawa joognaa in Burleenka degan inuu inta ka tago meel duur ah oo wax maxay nolol aysan oolin oo wax caafimaad uusan ka jirin inuu intuu tago uu ka shaqeeyo arrimo bulsho ka shaqeeyo wax maslaxa aysan ugu jirin waad garan kartaa xanuunkii wuxuu leeyahay marka inaan hawsha ayada wixii gacan aan ka geysan karnaa annaguna aan ka geysano adinkuna dad gacalaho walaalaho Soomaaliyeed baa tihiin inaa hawshaas ayada gacan ka geysataan wixii maxay ahayd karaankiina wixina aan karaankiina ahayn hadda ninna idin weydiin maayo waxa karaankiina hadda dad inta keentaan meeshii ha aadeen oo hayd yallo baan leenahay ya gaabanow adhiye garoorka iyo subaga igu filan oo gubaada ay wax shisheeye ka soo gala gaajo bixin waaye garwaaqsaday waana waa lagama guuraani inkastoo bulsho kasta ee dunida ku nool ay leedahay ruux hal door u ah haddana Cabduqaadir Maxamed Shirwac waxa uu bulshada Soomaalida u yahay hal door muuqiisa iyo maskaxdiisa ay ku meel maraan Shirwac waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad u bareeray in ay jaamacad ka hirgeliyaan magaalada Gaalkacyo sidoo kalena waxa lagu xasuustaa in uu ka mid ahaa dadkii wax ka yagleelay maamulkii Galmudug State ee midka maanta jira budhiga uu ahaa magaalada Gaalkacyo ayaan 10 sano u dambeeyay joogay waa dhab sidii noo kala Yurub deganaa ruuc qarni wax muddo ku dhow waan arkay inaysan ii cuntamaynin nolosha aan halka ka joogay marka ay ka haraadan yihiin waxaan awoodo inaan ku waraabiyo kuwa u haraadan inkastoo siyaasiyiinta isaga la midka ah ee ka soo jeeda deegaankaasi uu hankoodu ku salaysan yahay maal iyo magac waxaase uu Shirwac kaga bedelan yahay intaba waa ruux aan doondoonin kala saar labado kala soocay 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 ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya ayayno sinnaanine hayno kala sokeeya wadadani sawirka idin muuqdahay waa 60 kiilo
waa lagu qaban karayaa annaga 60 kiiloomitir 4 milyan baa nooga baxday shaqada dhismaha wadada oo marba marxalad soo mareysay ayaa markii laga soo baxay magaalada iyo tuulooyinkii ka agdadawaa waxaa la soo gaaray dhul hawd iyo kayn ah inkastoo professorku ay ka go'nayd inuu shaqaalaha la seexdo cidlada si ay u socoto shaqadu waxaana professorku uu gaaray heer uu dhowr xabo oo timir ah jeebka gashto si baahida iyo haraadka uu uga adkaysto kii ugu horeeyay oo uu professor Shirwax ku soo gaaro magaalada Buurlenge ee dhacda carrada gobolka Doolana ee dalka Sweden isagoo bulshada ka codsaday in ay gacan ka geystaan barnaamijka samafalka ah ee safarkiisu ku salaysan yahay waxaan go'aansanay haddii eebbe yiraahdo inaanu waxaan naga maqan kalaasharkii dhagaxa jajabinayay iyo baabuurkii laamiga daadinayay iyo midkaan hadda barnaamijkan cusboonaaday oo ah biyo la'aanta riigii biyaha qodayay reer Buurlenge saddexaas ka qaadanaysa